shirkaasi baryahan buu inagu wareegayo shalay dhuxdiisii hadalkiisii waxa soo afgooyay madaxweynaha qaranka wadi waa kii warda beel way shiri kara wax nusqaana iyo wax foolxuma ah ka degmahan anigu haddaan degmadii u warhayo iyo wax ceebaanu ka filayna midna inuu ka soo baxo ma jirto sida madaxweynuhu uu ilaamiyay in la shiri karana ayuun bay runtii ku soo ururaysa arinku wax kastaba marka hore laga hadlo laakiin muhiimaddu waxa weeye dadku way isu tagi karaan laakiin qarankan jiritaankiisa iyo horumarkiisa wixii ka hor imanayuu baa ceeba laakiin ummaddu waa la wada hadli karaa shirka waa laga sasoosay aad baa looga sasoosay shirka waxa dee markaan intaan guntiisa la gaadhin oo xogtiisa la helin waa laga yaabaa dee in dad aan dee magaranaysa aan saan dee cid kale wax ku darsan karto oo aan markaa dee fiicnayn laakiin guntii anagu dee degmadii baanu nahayoo wax ceeba waanu ku ognahay ma jirto madaxweynaha qarankana waa kii dee shalay mid ceeba iyo mid foolxuma oo dee runtii qarankan looga baqayo in dee lagu sameeyaana ma jirto marka anagu intaasanu ka warhayn ugu dambeyn maayir ku-xigeenka magaalada Burco Maxamuud Xasan Jaamac Xoday waxa uu ka hadlay dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco oo muddooyinka u dambeeyay hadal hay badan ay ka taagnayd arrinta guddi baanu dugsiga farsamada gacanta iyo wasaaradda tiimkan arrintan u qaabilsanaa oo gudoomiye ku-xigeenka ka yahay agaasimaha ilkaase intaan halka joognay cid baanu iska aragnay laakiin guddiyadii baanu runtii weli xogti dhammaystiran insha allahu tacaala ka sugaynaa markaanu arrintaa xaqiiqdeeda iyo gunteeda gaadhnana dee meeshii ay leedahay ayaanu gaarsiinaa kala tegaynaa laakiin weli war baa noogu dhiman arrintaa laakiin hadda dhismihii dugsigu yuu istaagay mise uu socdaa dee dhismaha looma bilaabin in la bilaabaa bay ahayd qorshahan dhismo socday oo la waday muu jirin laakiin waa qorshihii loogu talagalay in maxay ahaydey wax lagaga qabto marka arrinta xogteeda markaanu helno iyo gunteeda ugu dambaysay guddidan aan la kulanno baanu dee wixii aanu ka odhanayno ay munaasibta deyn laga yidhaahdo Nagiib Cabdilaahi, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Hargeysa.